maamulaha jaamacadda Alfa ee magaalada Berbera Axmed Cabdi Ciise ayaa fariin u diray ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Berbera waxaana hadalkiisa kamid aniga magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdi Ciise waxaan ahay maamulaha jaamacadda Alfa qaybteeda Berbera waxaan doonayaa maanta inaan saddex qodob oo muhiim u ah gobolka Saaxil ardaydeeda inaan ka sheego halkan waxa weeyaan horta markii hore jaamacadda badda waxa runtii aanu aasaasnay u aasaasnay in jaamacaddaasi ay noqoto jaamacad xirfad leh oo kalluumaysiga badda mariniska fakalladii kalena in laga helo ayaan ugu talagalnay waqtiga waxa runtii aad noo gacan qabtay wasiirka waxbarashada ahaa Xasan Xaaji Maxamuud waxa group aan ku ahayn oo gudoomiye noo ahaa Faadma Saciid waqtigaas oo ay noo saamix waday in la isfahmo hadii xagga dawladda iyo shacabka iyo ardayda wala noqdo way xirantay waxaan mar labaad geeyay jaamacadda Golis oo 6 bilood aan ka shaqeynayay semesterkii ugu horeeyay aan dhameeyay taasoo iyaduna ay ku baabaaday isqabsad markii dambe waxaan ka tagay haddana oon jaamacadda Alfa ayaan haddana bilaabay waxaasoo dhan waxaan u sameynayay oo aan doonayay oo aynay fahmaan maamulka dawladda iyo shacabku ay fahmaan iyo ardayduba magaaladu waa magaalo yar gobolku waa gobol yar Saaxil inay yeelato hal jaamacad oo ay isugu yimaadaan ardaydoo dhan fakalladoo dhan resourceska ay wax ku helayaan ama dhaqaalaha meelaha ay ka helayaan ay hal meel kaliya ku wada baxaan run ahaantii taas wali riyadayadu way ku jirtaa imika waxa qodobkan aad muhiimadeedu tahay waxa weeyaan ardayda ka soo baxda jaamacad waxbarashada secondary-ga ama dugsiga sare ka soo baxda iyo kuwii hore u dhigtay ee shaqaalaha ka ah inaanay ku talagelin in ay ka guuraan gobolka oo ay gobolka kale Hargeysa ama Boorama inay tagaan sideedaba gobolada ardaydu inay ka yimaadaan gobolada jaamacadaha leh in ardaydu ka soo guuraan oo yimaadaan caasimadda aad baan uga dardaarmaya dhibaatooyinka qabsanaya waxa weeyaan dhaqaalahoodu isma bixinayo reeray dulsaar ku noqonayaan gaadiid badan bay bixinayaan kharash badan bay bixinayaan waxaasoo dhan reerku ma wada qaadi karo isna qof shaqaalaha maaha marka waxaan ku dadaalaynaa anagu gobolka Saaxil markay tahay waxaasoo dhan u sameeynaa in ardaydu ay ku nagaadaan iyaga iyo waalidiintoodu fahmaan in ay gobolka jaamacadaha ka jira inay wax gashadaan oo iyagu ay wax ka bartaan waayo macallimiinta ka dhigaysa caasimadda iyo kuwa ka dhigaya goboladu waa isku mid waxay dhigayaan waa isku wada mid manhajka dhigayaan waa isku wada mid waxaaba kharash yar oo kharashkoodu aad uga yar yahay marka loo eego caasimadda ka gobolada gurigoodii bay ku nool yihiin gaadiid ma bixinayaan lacagta laga qaadiyo fiigu waa lacag yar bil buu deen karaa bil kale uu qaadan karaa marka waxaan aad ugu booranay horta inay taas sameeyaan waxa jaamacadda Alfa ay u sameysay ardayda sanadkii dhaweyd muddo 4 bilood ah in ay ka kabaan maadooyinka sayniska iyo xisaabta oo ay macallimiin aad u dhisan uga yimaadaan Burco iyo Hargeysaba ilaahay raali ka noqday namadaasi aad iyo aad baan ugu ducaynayaa waxay aad u soo gacan qabteen ardayda gobolka Saaxil waana ta u suura gelisay in ay maanta ka dhacdo hal qof iyo wax ay ka dhacaan maanta waxaan maadaama aan ogaanay in ay gacan qabasho badan oo caynkaas u baahan yihiin jaamacadda Alfa waxay bilaash ugu dhigaysaa oo ku soo gacan qabanaysaa dugsiga yada sare ee gobolka Saaxil in ay macallimiintii ugu wanaagsan u soo shaqaaleeyaan oo ay u dhigaan 4 maado 3 maado sayniska xisaabta iyo luqadii oo iyagana maanta already loo bilaabayba iyagana waxaan ku booranaynaa in ay ka faa'iideystaan oo ay si dhab ah u fadhiistaan oo taas waxay noo suura gelinaysaa in qishku yaraado isku kalsoonida dadku inay fiicnaadaan ardaydu inay yeelan karaan halkay waqti far badan habeenkii ku luminayaan iyo galabtii inay yeeshaan in meel ay isugu yimaadaan oo ay wax ku bartaan oo ay ku shaqeystaan
oo macallimiintooda u diyaarka ay ka horeeyaan taasaan aad iyo aad ugu boorinaya jaamacadda Alfa waxay sanadkan idin bilowday duruus aad iyo aad u fara badan oo isugu jira Ethiopia distance learning laga qaadanayo oo distance learning macnaheedu ma aha in qofka inta buug la siiyo waraaq la siiyo la tagayo wuxuu fariisanayaa class wuxuu loo dhigayaa TV-gii ayaa loo dhigayaa muraayadii buu ka daawanayaa course-kii oo socda 30% macallimiinta Ethiopia ka dhigaa u imanaya 70% class attendance bay sameynayaan ay yimaadaan